gabadhan waa gabar caan ah waxay si toos u sheegaysaa inay diinta islaamka ay banaanka ka taal subhanallah muuqaalka qaybtiisa dambe waxaad ku daawad doontaa muuqaal ay iska soo duubtay oo ay leedahay diinta muslimka ayaan banaanka ka ahlaa oo ay markaasi waxyaabo kala duwan oo ay uga baxday ay ku sheegayso waana arrin la yaab leh oo fajac ku noqotay bulshaweynta Soomaaliyeed dal iyo dibad meesha ay joogaan arrintan ayaa baraha bulshada gilgishay waliba dadka muslimka ee Soomaalida ah ay aad uga caroodeen iyagoo inkaar ku ridaya gabadhan lagu magacaabo Fartuun Balbalaarka oo si cad u sheegtay in ay gaalo tahay oo diinta muslimka ay ka baxday walaalkayga Soomaaliyeed arrinkan waxa uu u baahan yahay inaanu ka dhiidhino muuqaalkan like saar aragtidaadana ka dhiibo si share gare oo gaarsi bulshaweynta Soomaaliyeed si ay u arkaan in gabadhan dhaqan xumadii ay markaas ku hayday bulshada dhexdeeda ay ugu dambeyn ka liftay inay diinta muslimka ay banaanka ka taalo waa gabadha lagu magacaabo Fartuun Balbalaarka nolol ma lagu jiri kareen والله هدي لا قالوا بك عاو قالوا ولا هدي لا قالوا بك انت سكون دولار اللي بسين لا قال لي ماذا عاو انا وقالوا ولا دين ما كبيح لها والله بالله دقيقه قالوا ولا عاو انت سكون دولار نولش اقول حيسن كرو وقالوا ولا عاو مسلمين ماذا نو بخ لها Fartuun Balbalaarka waxay maanta sheegtay inay gaalo tahay oo ay diinta islaamka ay ka baxday oo ay banaanka ka taalo gabadhan waa Fartuun Balbalaarka shilimaad ama lacag yar ayay diinta islaamka u siisatay waxay leedahay $1,000 hadii la isiiyo diinta islaamka waan ka baxaya subhanaka ya cadiim islaantan faca weyn leh ee qanjirada buuran diinta islaamka ayay lacag u siisanaysaa awalan dhaqan xumadeeda iyo surwaal iyo shaati iyo dhaqan xumo iyo nikis ayay baraha bulshada la imaanayso la joog oo aan waxa weey u adkaysan weynay oo bulshada Soomaaliyeed u adkaysan weyday haddana waxay ku dartay inay si share gareeyo oo bulshada Soomaaliyeed iyo in allaal inta muslim ah waxa weey gaarsiya si arrinkan ay uga digtoonaadaan jiilka waxa weey ay marin habaabinaysana waxa weey ay u noqoto cimri qaadasho gabadhan waxay ka dhalatay beel sharaf leh oo jireer weyne la yiraahdo waxay ka dhalatay dad waxa weey wanaagsan wax ceshta oo waxa weey yiraahdo ka joog waxyaabahan waxyaabo aad ku jirto oo qalad weey ma jirto miya culimada islaamku waxay sheegeen hadii waxa weey qof muslim ah oo ku dhawaaqo oo yiraahdo diinta muslimka banaankan ka ah inuu kuwa gaalada ka dareeyo Fartuun Balbalaarka waxay maanta sheegtay inay gaalo tahay oo ay diinta islaamka ay ka baxday oo ay banaanka ka taalo nolol ma lagu jiri kareen والله هدي لا قالوا بك عاو قالوا ولا هدي لا قالوا بك انت سكون دولار اللي بسين لا قال لي ماذا عاو انا وقالوا ولا دين ما كبيح لها والله بالله دقيقه قالوا ولا عاو انت سكون دولار نولش اقول حيسن كرو وقالوا ولا عاو مسلمين ماذا نو بخ لها والله جرير قبيل معها جرير اكو شرطه قبده قليل إنا قالوا قبيل كلا شيطة ما عصب حسدا عابو عصب راسدا هاي عصب راسدا دنتي هو خص بيسو والله هدي عاو لا قالوا بالهاي نقول شيء أنت كدما إما نيتدليدي لها وحقدروك العشاء وهي ليس والله نص مسلم ما عامله وكبيح لها subhanaka ya cadiim waxay sheegtay hadii lacag la siiyo inay waxa weeye ay banaanka ka tahay diinta qof kasta oo Soomaaliyeed ama muslim waxa u sheegaynaa in maanta wixii laga bilaabo Fartuun Balbalaarka ay tahay waxa weeye gabar ayadu diinta islaamka banaanka ka taalo sida iyadu ay sheegtay gabadhan Fartuun Balbalaarka la yiraahdo oo awal hore uu waxa weeye daaqada ka bixiyay balaayo Allah ku ridee Xasan Toomi la yiraahdo ayaa waxa ay marka ay maanta maraysaa inay tiraado diinta islaamka ayaan banaanka ka ahlaa gabadhan oo awal waxa way ku soo caanbaxday inay surwaal xirato dabeedna funaanad dhajisa qaadato iyadoo waxa way caloosheedii iyo naasaheedii iyo waxyaabo kala duwan oo cawradeedii ay muuqdaan ayaa maanta waxay maraysaa inay tiraado hadii lacag la isiiyo diintii muslimka ayaan banaanka ka ahlaa Soomaaliya hadan arrinkan waxa weey aan u aamusno cadaab iyo waxa mudanayna cara Allah ku dhacdo Fartuun Balbalaarka waa gaalo diinta muslimka ayay ka baxday ayadaa sheegtay waxa weeye aanu u heelino xaq alle aanu u heelino gabadhan ina waxa weeye bahalkii sheeg waxyaabaha ay diinteena ku sameynayso aysan mar dambe ku sameyn aynu u heelino oo aynu badbaadino dhalinyarada caadaystay baraha bulshada inay maalin walba inta yimaadaan ay yiraahdaan waxa weeye gaala ay waxyaabo dhaqan xun ay ka sheegaan Fartuun Balbalaarka oo awal dhaqan xumadeedu ay meesha ugu dhaqan xun ay ka sheegaan
fartumar ballaarka oo awal dhaqan xumadeedu ay meesha ugu sarreysay marayday oo ay 24 saac galmo iyo waxaan loo joogin ay ka sheekaynaysay oo ay xitaa cawradeeda asturan weyday waxay mareen maanta inay tiraahdo meel goob maxfal inta soo istaagtay diintii islaamka bannaanka ayaan ka allah ilaahan idinku dhaariyo qof sidaasa oo sidaa sheegaya maxaa idinka qaban lahaa Soomaaliya qof sida oranayo dhahaya diinta muslimka ayaan bannaanka ka allah haddaad arki lahayd oo ka hor imaan lahaa maxaad ku samayn lahayd gabadhan ehel cishta oo culummo iyo nooc walba isugu jira malamiya haddayse dan lahayn ha loo sheego waddanku dawlad buu leeyahay dadka waxa weeye saaxiibka u ah arrinkan oo waxa weeye shaqadoodu ay tahay inay ka qabtaan dadka oo ay dhaqan celin waxa weeye u sameeyaan